sidoo ku helay Daahir Calasow YouTube-ka Sundus ayaan leh ma technical power awood dhab ah oo haakarnimo ma jabsaday mase sida uu sheegay waa YouTube falaagar oo sidaas ayuu ku helay mase waa loo dhiibay oo dad ayaa gacanta u galiyay saddexdaas wado midda uu YouTube-kan 1 milyan maraya ku helay Daahir Calasow oo uga soo dhex hadlay ayaan rabaa inaan muuqaalkan kaaga jawaabo oo kuugu cadeeyo muuqaalka like saar si share garay si ay dadka u gaaraan xaqiiqooyinka aan halkan uga hadalno ninkan wuxuu isticmaalaa wax loo yaqaano psychological domination in maskaxiyan loogu ciyaaro qofka in maskaxiyan loo dhaawaco waa dadka ku shaqeysta cabsigelinta iyo handadaada tusaalena waxaa kuugu filan gabadhan yarta ah ee 20 jirka ah ee aan internetka wax badan ka fahamsanayn gabar yar oo fahamtay nolosha internetka waqtigeedii isaga jirta oo iska baashaalaysa ninkaana wax dagaal ah uusan kala dhaxayn waxay si kadis ah u aragtay asagoo YouTube-keedii muuqaal soo galiyay oo ka dhex hadlaya oo dhahaya YouTube-kaas aniga ayaa haya damage-kii koobaad ama dhaawicii koobaad ee maskaxdeeda ayay la kulantay maxaa yeelay YouTube-keeda nin ayaa hayay oo ay ku ogeyd ama ninkaas iyo ayada dagaal ha ka dhaxeeyo ama heshiis ha ahaadaane weligeed kuma aysan fakarin ninkan ayay waxaaga u tagi doonaan ayadoo dhacdadaas la ama kaagsan laakiin uu leeyahay gabadhaas wixeeda waan ku wareejinayaa ayada ayaan u hayaa ayay WhatsApp ugu tagtay waa ay u oysay way barisay way u calaacashay laakiin cod ayuu ka duubay public ayuuna ka daaray codkeedii ayadoo calaacalaysa oo u ooyeysa damage-kii labaad ee maskaxeed ayaa gabadhan gaaray intaas wixii ka dambeeyana gabadhan meel ay ku sugan tahay ma aysan aqoon hadba life ayay furanaysay wax ay ku hadlayso iyo wax kalena ma aysan kala garanayn maxaa yeelay dhaawac weyn oo maskaxeed ayaa gaaray intaas uguma usaharine YouTube-keedii ayuu bareefad geliyay oo hawada ayuu ka qariyay damage weyn ayaa haddana sii gaaray oo YouTube-kii waa ay ka samirtay YouTube channel kale ayay furatay Soomaali badan ayaa ku soo biiray oo subscribe dhahay laakiin halkii ugama usaharine akoonka cusbaana report ayuu ugu daray waxaas oo dhan wuxuu ugu sameynayaa gabadhan dhalinyarada ah inuu helo system control-keeda inay ka cabsato oo asaga hoos timaado cabsidii ugu weyneed ayayna dhexda uga jirtaa gabadhaas yar maskaxiyan ayuu u dhaawacay waa uu cabsi geliyay oo waa uu handaday marka qodobkan psychological domination-ka waxa adeegsada dadka aan lahayn awoodda dhabta ah ama technical power-ka aan lahayn oo aan ficliyan wax u sameey karin marka laga tago damage-ka uu gabadhan u geystay sida uu nolosheeda u burburiyay gabadhan dhalinyarada ah asaga wuxuu sheegay inuu yahay YouTube falaagar oo YouTube falaagarana oo like nice ah ewankii waa dabagalay waa baaray ma taqaanaa markaan dabagalay nin balaah YouTube falaagar ah sidaasna uu YouTube-kan ku helay laakiin markaan idin la wadaago YouTube falaagar waxa uu yahay ee aad ogaataan waxaad ogaa doontaan ninkan inuusan wax technical power ah lahayn ee YouTube-kan loo dhiibay user iyo password qof uu u dhiibay sidaasna uu YouTube-kan ku soo galay hadeerna cabsi asaga soo wajahday darteed oo YouTube-kan bareefad u galiyay YouTube falaagarka oo ninkan sheeganayo horta waa maxay ma jiro qof YouTube falaagar ah ama YouTube ka shaqeeya oo inta soo fariista dad handadi kara ama channel islaameed jabsan kara oo ruqsad u haysta horta ma jiro sababtana waa idin sheegaya YouTube falaagariska ama dadka YouTube ka shaqeeya waa dad diiwaan gashan kambaniga Google ku jira waa dad maray DNA dadka YouTube falaagariska ah looma ogola inay awood shaqo si gaar ah u isticmaalaan midda kale ma jiro qof YouTube falaagar ah oo guri dhex fadhiya dad handadaaya channel islaameed jabsan kara iska dhaaf inay channel islaameed jabsadaan xitaa kuma soo wici karaan fariin gaar ah kuma soo diri karaan oo waxaaga ayaan haynaa xitaa kuma dhihi karaan YouTube falaagarisku marka YouTube falaagar ayaan ahay waa been abuur weyn oo uu YouTube u geystay waana dambi bari ka maalin lagu dacway karo laakiin hadda asagu markuu leeyahay waxaan ahay YouTube falaagar wuxuu ka cararayaa inuu yiraahdo haakar ayaan ahay YouTube-kan waan soo jabsaday maadaama uu ku nool yahay Netherland wadan shuruuc adag leh wadan dadka dambiyada noocaas ah geysta ay shuruuc adag uga taalo marka ninkan Netherlands loo ka cabsanaya si bareer cad ah uma dhihi karo haakar ayaan ahay oo YouTube-kan waan jabsaday marka hadda wuxuu ku soo aruuray YouTube falaagar aan ahay ninkan YouTube falaagar ma ahan sidoo kale haakar ma ahan oo aqoon uu wax ku jabsado haduu leeyahay mar hore ayuu YouTube-yaal badan ka soo dhex hadli lahaa gunaanadka muuqaalka haddii uusan haysan technical power awood dhab ah oo uusan YouTube falaagarna ahayn haakarna uusan ahayn sidoo YouTube-kan ku helay jawaabtu waa iska cadda YouTube-ka Sundus userkiisa iyo passwordkiisa ayaa la siiyay ama saxaaf ha u dhiibo ama qof uu saxaaf u dhiibay ha u sii dhiibo waxyaalaha uu ninkan Soomaalida isaga gado waxa kamid ah riboodyada uu sameeyo ama TikTok ha riboodo
ama YouTube ha riboodo laakiin ogow report systemku waa free riboodan sameeyay laguma noqdo YouTube falaagar aniga ayaa report sameey kara adiga ayaa report sameey kara ciwaano been abuur ah ayaan report ka sameey karnaa akoon kasta ayaana report ku weerari karnaa damage-ka uu gabadhan yar u geystay ninkan iyo abuse-ka uu ku sameeyay haddii gabadhan sidaan u da'da yar sidaana maskaxiyan loogu ciyaaray haddii ay report qorato dacwad gudbisato booliska Soomaaliya ay saxiixaan iska dhaaf ninkan dambiyadii uu Soomaalida ka gali jiray oo dhan xagga iska dhig intaas yarta oo adinka aan waxba idan laahayn haddii report laga diyaariyo booliska Soomaaliya ay saxiixaan booliska Netherland reportkaas gacanta loo galiyo ninkan tilaabo cad ayay ka qaadi karaan booliska Netherland ama ha tarxiilaan ama xabsi ha dhigaan ama lacag ha ku ganaaxaan ama internetka dhan ha ka mamnuucaan oo cirbad inta ku dhuftaan guriga ku xiraan